dhismaha wadooyinku waa tallaabo sano Soomaaliland u qaaday dhinaca horumarka waana qalinkii Faysal Maxamed Cabdi Farfalle. wadooyinku waxay ka mid yihiin kaabayaasha nolosha bulshada ugu muhiimsan ee wax weyn ka bedela kobaca dhaqaalaha maadaama ay sahlaan isu gudubka ganacsiga iyo socodka magaalooyinka. xukuumadda dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wadooyinka uu ka yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro markii hogaaminta qaranka ay la wareegtay waxa ay muddo gaaban gudahood ay kaga dhabayseen inay ficil muuqda ay u rogto ballanqaadkii ay ku hanatay qulubta shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo keentay in madaxweynuhu dhagax dhigo boqolkii maalmood ee ugu horeysay xilhayntiisa laba mashruuc oo adduun badan ku kacaya kuwaasi oo ahaa dhismaha jidadka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Balligubadle iyo wadada isku xidha Baki iyo Boorama. dhismaha labadaasi wado oo ay gacanta ku hayso hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa dhismahoodu si xawliya ku socda. xukuumadda Soomaaliland ayaa jidka Balligubadle iyo Hargeysa isku xidhaya waxay dhigtay 10 kiiloomitir ee ugu horeeyay oo la saaray daamurkii 10 kiiloomitir ee laamida ee la saaray rooga ayaa waxa uu isku xidhaya degmada Gumburaha ilaa iyo magaalo Xaali oo ah qaybtii ugu rafaadka iyo dhibta badnayd wadada Balligubadle. iyada oo laamiga la saarayo jidkani uu yahay nooca ugu tayada fiican ee loo yaqaano rooga asalka ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo waliba wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. dadweynaha ku nool jiidaasi ayaa soo dhaweeyay mashaariicda noloshada saameynta togan ku leh iyaga oo muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in xukuumaddu ay hirgeliso dhismaha jidkaasi oo qayb weyn ka qaadan doona fududeynta socodka dadka iyo gaadiidka isla markaana ay kaalin muhiim ah ay ku yeelan doonaan horumarka kala duwan ee ay higsanayso degmada iyo deegaanada dadka degan jiidaasi guud ahaantoodba. si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jirin in wadooyinku ay yihiin halbowlayaal qayb weyn ka qaata horumar kasta oo dalku beegsanayo waana howlqabad mudan in lagu bogaadiyo xukuumadda Soomaaliland inay dhisto jidadkan cusub ee hadda ay gacanta ay ku hayso kuwaasi oo dhaqaalaha ku baxaya laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland.